Uruguay ama sida aan dhahno ee Uruguay ama Oriental Republic of Uruguay waa dal baaxad yar oo ka mid ah dalalka dhaca Koonfurta Ameerika. Waa mid ka tilmaaman dalalka la dhaca qaaradda, waxaana jiraan arrimo badan oo uu kaga duwan yahay. Haddaba ku soo dhawaada xaqiiqooyin kooban oo ku saabsan dalkan dhaca Koonfurta Bari ee Koonfurta Ameerika. dalkan xadka kaliya ee bariga ah wuxuu la wadaagaa dalka Brazil, gaar ahaan gobolka ka tirsan Brazil ee Rio Grande do Sul. dhanka galbeedna waxaa ka mara webiga uu ka yimid magaca dalkan, waana webiga sameeyay xadka u dhaxeeya Argentina iyo Uruguay. sidoo kale dhanka koonfureed waxaa kaga beegan webiga Rio de Plata, halka badweynta Atlanticna ay ka xigto koonfur bari. bedka guud ee dalkan waa wax ka badan 100,000 kiiloomitir isku wareega, waana dalka labaad ee ugu yar Koonfurta Ameerika, waxaana ka yar oo kaliya dalka Suriname. caalami ahaanna Uruguay waa dalka 89aad ee ugu dhulka weyn. tirada dadka dalkan waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan iyo bar. 1 milyan iyo bar ka midana waxay ku nool yihiin caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalkan ee Montevideo. dadka Uruguay iyo Argentina waxay wadaagaan dhaqan iyo af Spanish ah. boqolkiiba 88 oo dadka Uruguay ahna waxay asal ahaan ka soo jeedaan Yurub. luqadda rasmiga ah ee dalkan waa Spanish, waxaana aabaha madax banaanida Uruguayna lagu sheegaa Jose Gervasio, kaasoo 1812 bilaabay dagaal ka dhan ahaa Isbaanishkii dalka haystay. waa dal aysan diimuhu ku xooganayn, boqolkiiba 58.1 waa Kirishtaan, boqolkiiba 23.2 waa kuwa aaminsan inuu Alle jiro laakiin aan wax diin ah raacsaneen, boqolkiiba 17.2 waa mulxidiin. boqolkiiba 98 oo dadka dalkan ah waa kuwa wax aqrin kara waxna qori kara. waxbarashada asaasiga ahna waxay ku waajib tahay qof walba oo muwaadin ah, waxayna Uruguay 2009 noqotay dowladdii ugu horeysay ee arday walba siisa kombiyuutar laptop ah si ay kor ugu qaado tayada waxbarashada. Uruguay waa dalka leh heesta astaanta qaranka ee ugu dheer marka la eego inta daqiiqo ay soconayso, waxayna socotaa ku dhawaad 5 daqiiqo. dalkan waa kii ugu horeeyay ee martigeliyay koobka kubadda cagta adduunka sanadka marka uu ahaa 1930, waxaana finaal isugu imaadeen labada dal ee dariska ah ee Uruguay iyo Argentina, waxayna ciyaartu ka dhacday garoonka Estadio Centenario oo ku yaala caasimadda Uruguay. ciyaartii finaalka ahaydna waxay ku soo dhamaatay 4-2 oo ay guushu ku raacday Uruguay, taasoo ka dhigan in dalka Uruguay yahay dalkii ugu horeeyay ee ku guuleysta koobka adduunka. dadka dalkan waa kuwa aad u dhaqda ariga, waana dalka labaad ee ariga ugu badan lagu dhaqdo Koonfurta Ameerika, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Brazil. ariga dalkan waa mid ka badan dadka dalkan. qiimaha ariga dalkanna waa mid aad u jaban marka la eego tayada wax soo saarkooda. sidoo kale marka la eego tirada lo'da dalkan, qof walba oo dalkan u dhashay waxaa ku soo aadaya 3 neef oo lo' ah. Uruguay waa dowladdii ugu horeysay ee sharciyeysay in la beerto geedka marijuana oo maandooriye ah, xashiishkana la walaal ah. dad ayaa jira caafimaad ahaan u adeegsadaan. dalalka Koonfurta Ameerikana waxaa loo ogol yahay oo kaliya qofka uu dhakhtar kula taliyo, laakiin Uruguay waa dalka kaliya ee xitaa laga ogol yahay in la beerto lagana ganacsado iyo in xitaa dibadda loo dhoofiyo. 1996 ilaa 1998 dhaqaalaha Uruguay wuxuu sameeyay kor u kac 5% ah, laakiin wuxuu hoos u dhac weyn sameeyay 1999 ilaa 2002 kadib markii ay dhibaato dhaqaale soo wajahday labada dal ee dariska la ah ee Brazil iyo Argentina. waxayna muwaadiniinta Argentina lacagahooda kala baxeen bangiyada Uruguay, waxaana hoos u dhacday qiimaha lacagta Uruguay oo lagu magacaabo peso Uruguay. laakiin dhaqaalaha dalkan wuxuu aad u soo kabsaday, korna u kacay 2004 ilaa 2008. maantana Uruguay waa dalka ugu musuqmaasuqa yar Koonfurta Ameerika. sidoo kale marka la eego Koonfurta Ameerika, Uruguay waa dalka ugu horeeya dhanka xorriyadda saxaafadda iyo dalka labaad ee ugu nabadgelyada badan Koonfurta Ameerika, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Chile. dalkan waxaa xukumayay 1981 ilaa 1985 keligii taliye lagu magacaabayay Gregorio Conrado Alvarez,
waxaana 2009kii lagu soo eedeeyay 37 dambi waxaana lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. laakiin madaxweynaha caanka ah ee dalkan ka soo jeeda waa Jose Mujica oo loo yaqiinay madaxweynaha adduunka ugu faqiirsan sababo la xiriira qaab nololeedkiisa sahlan. wuxuu ahaa jabhad aftahan ah, sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynaha Uruguay 2010 ilaa 2015, waxaana lagu xasuustaa sida uu u dhaqmi jiray intii uu madaxweynaha Uruguay ahaa, asigoo diiday inuu ku noolaado qasriga madaxtooyada. 90% oo mushaarkiisa ah ayuuna deeq ahaan u bixin jiray, waxa kaliya uu haystayna wuxuu ahaa gaari Volkswagen ah oo 1987 la soo saaray. 2018 wuxuu sheegay inuusan u baahnayn gunnada gabowga ee uu siin jiray aqalka sare ee dalka Uruguay, wuxuuna iska casilay jagada xildhibaannimada ee aqalka ee uu hayay tan iyo 2015 kadib markii uu sheegay inuusan dhameysan karin muddo xileedkiisa.